wadaad mu'adina ayaa gabadh ayuu jeclaaday waa qiso macquulana gabadha aabaheed baa markaa loo doono loo tago lagu yidhi gabadhaada nasiib markaasuu gabadha ninkaad u doonaysaan waayo markaasaa la yidhi waa ninka hebel hebel la yidhaah markaasuu muxuu ka shaqeeyaa markaasaa lagu yidhi masaajidku ka addimaa wuxuu yidhi gabadhayda mu'adin ma siinayo gabadhuna markaa ninkaa runtii waa nin khayr ay ku ogto waa iska doonayso way jeclay ninkuna gabadha uu jeclaa ninkii baa loo yimid oo la yidhi warniyo waa odaygii gabadha uu kuu diiday sababna wuxuu ka dhigay cillad wuxuu odaygu ka dhigay war ninku waa mu'adin mu'adiniintana waa la og yaho qol yaro maskiidka ku yaalla ayay degan yihiin gabadheeda ma qolkaabuu rabaa inuu la taga buu yidhi markaasuu yidhi bal waa yahay iska daaya buu yidhi gabadhii buu yidhi naade waa yahay bal adna iska sabir anna waa sabriyo ilaahay aan barino sanad kadib ayaa ninkii uu fikiray markaa qorshaa ilaahay qalbigiisa ku sharxay ilaa shay markaad jeclaato ee lagaa hor joogsado hadhi maysida xeelad baad raadinaysaa shayga aad ku gaadhid markaasuu odayaashiibuu u yeedho wuxuu yidhi war ninkii odayga ahaa iigu noqdo oo gabadhii maaragtaane ha la ii doono markaasaa lagu yidhi war waagii dhoweyd baan meesha ku lugo'onay hana lugoyne adeer masaajidkaaga ka addimo iska fadhi bay ku yidhahdeen markaasuu yidhi maya ku noqda waxaad iga gaadhsiisaan odayga uu kiin weydiin doonaaye ku dhahada ninku waa ninkii laakiin ninkii shaqo fiican buu helay iminka shaquu qabtay markaasay ku yidhahdeen war shaqadaad qabatay maxay tahay waa adigan aadaankii uun waday weli addimayeen kugu ognahee shaqadaad qabatay dee odayga u sheegnaa bal noo sheeg waxaad ku tidhaahdaa ninkii mu'adinka aad ku ogeydad gabadha u diidday aqalka boqorka qasrigiisa qasriga boqorka ninkii shaqo laga siiyo xafiis baa loo dhiibo boqorku la shaqeeyaa oo yaabay marka odayaashii waxay yaabeen jawaabtan aanayni siin waxaad ku tidhaahdaan welibana waxaynu odhan doonaa qaybtee baa loo dhiibay waa shaqo fiicane waxaad ku tidhaahdaan waxaa loo dhiibay shacabka iyo boqorka ayuu u kala dhaxeeyaayo shacabka ayuu boqorka ku soo xidhaa waxa uu boqorku doonaya buu shacabkana u sheegaa intaa igu sheegay buu yidhi waa loo yimid odaygiyo waxaa lagu yidhi ninkii shaquu helay markaasuu shaqaduu helay boqorka qasriga boqorku ninkii shaqo ka qabtay shaqo cajiib ah markaasuu odaygii farxay ya waa meel fiican buu galee meel fiican buu galay haa dhegayso markaasuu yidhi qaybtee buu ka shaqeeyaa boqorkay layn xafiisyo badan buu leeyahe waxau ka shaqeeyaa shacabka iyo boqorka ayuu u dhaxeeyaayo labadaabuu isku xidhaa ka dhahada buu yidhi labadaabuu isku xidhaa wayba fiican tahe wiilal badanoon dhalay baaba shaqayna kuwaabuuba shaqo noogu raadina buu yidhi gabadhii waa la siiyey uu iska guursaday aadaankii uu iska wataa odaygii baa aawo shaqaduu qabtay wuxuu yidhi adeer shaqadaa qabtay waa aadaanku waa maxay aqalkan waa aqalkii boqorka weeyaan malikalmuluuk aqalkiisii weeyaan mu'adinku waxau ka shaqeeyaa shaqo kale ma qabtee ilaahay addoomihiisu isku xidhaa mu'adinku salaadu markay gaadho ayuu mu'adinku masaajidka xagga sare u baxayaa xaya cala asalaa xaya cala alfalaax buu leeyahay kii meheradda ku dhex jiray meheradda dhex joogay ayuu leeyahay ilaahay amarkiisii baa gaadhay salaaddii wakhtigeedii baa gaadhay liibaanta xilligeedii baa la gaadhay kaalayoo amarka ilaahay gudo waad ku liibaanaysaa buu leeyahay mu'adinku marka innagu zamankan maanta aan joogno waa zaman dadka maaddada ayaa kor martay maaddada waxaa dhacda dadka inay ku qiimeeyaan muxuu asbaab adduunyo uu haystaa walaakiin zamankii nebigeenna calayhi salaatu wassalaam qofka waxaa lagu qiimaynayey diinta qofku uu leeyahay baa lagu qiimaynayey